يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفسا واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى ويدي سنينا إنه كلمة إنك أقبله فرق عن الله تبارك وتعالى ميزان حسناتين وصاره وقالنا إلهي إنه وعمل طلق هذا إلى أفضل تبارك وتعالى. كلمة سيدنا شيء علمي يعني ماذا يكون صابسون هاي in haddana si gooniya waxay u saabsan tahay makaatu lculamaa wa manzilatuhum fi lumma. culimada booska ay ummadda ugu jirto ama ay kaga jirto taas ayaan si gooniya jeclahay insha allahu tacaala inaan waqtiga gaaban ilaahay ka yiraahdo. markii la yidhaahdo culimo la yidhaahdo waxaa laga wadaa macnaha yaqaanaa hum alcaarifuuna bisharci almutafaqihuuna fi diinihi alcaamiluuna bicilmihim. waa dadka ilaahay sharcigiisa yaqaana diinta rabbina tabaaraka watacaala fahansan cilmiga iyo waxa ay garanayaan ku camal fala oo ilaahay tabaaraka watacaala ku dhaqma sida culimo la yiraahdo. meesha waxaan ka fahmaynaa ruuxu hadduu aqoon diineedoo fiican ha yeeshee uusan ku dhaqmaynin wixii u yaqaanay oo akhlaaqdiisa iyo inkiisa iyo camalkiisu uu cilmiga ka badsan yahay culimada kuma tiriyo. haddii lagu tiriyo la yidhaahdaa culamaa usuuq oo kelimadaasa la raaciyaa war culimada xun baa la dhahaa. sidaas daraaddeed waxaa culimo waxaa la yidhahdaa alcaalimu bisharci illaah almubiin. waa ruuxa ilaahay sharcigiisa yaqaana waxa uu yaqaanana ku dhaqma oo ku camal fala. waxaa lagu yaqaanaa aqoontooda iyo garashadooda waa lagu yaqaanaa. waxaa lagu yaqaanaa birusukhi aqdaamihim fi mawaatin shubah
markay wax isku qasmaan iyo meelaha ay arrimuhu isku qasmayaan oo xaqa iyo baatilku la kala garan waayo oo ummaddu wareerto ayaga meelaha noocaas oo kale ah gomadooda ayaa sugan oo iyagu ma qasmaan arrimuhuna kama wareeraan waxaa lagu yaqaanaa binusukihim wa khashyatihim lillahi tabaaraka wa tacaala waa dad cibaadaysta oo ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cabsidoodaana waa lagu yaqaanaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ka baqaan bal sida xadiidka nabiga ku sugan sal alla alay wasalam waxaa ka mid ah dad markii la arko iyaga ilaahay la xusuusto oo markaad samtigooda iyo cibaadadooda iyo camalfalkooda iyo markaad aragto ilaahay ku xusuusinaya tabaaraka wa tacaala waxaa lagu gartaa bishahaadati jumhuuri ahli lxaqi waalcilmi lahum inay u markhaati kacaan oy u markhaati furaan dadka ahlulcilmiga ah ahlulxaqa ahlutawxiidka ah dadkaasi ciddii ay uga markhaati furaan oy u qiraan culimonimo u qiraan iyadana waa lagu garan oo dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala markhaatiyadiisa ee dhulka jooga waa dadka ahlulxaq iyo tawxiidka iyo cilmiga ah dadkaasi qiraalkooda iyo markhaati furkoodana waa lagu garan sida uu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullah waman lahu fi lummati lisaanu sidqin caam ruuxii ummadda dhexdeeda ku leh ee ammaan iyo wanaag lagu sheego bixaytu yuthnaa calayhi wayuxmadu fi jamaahiiri ajnaasi alumma ummadda qaybaheeda kala gedisan badankeed agtooda ka ammaanan oo wanaag iyo khayr ay ku yaqaanaan wuxuu yidhi fa haa-ulaa'i a'immatu alhudaa wa masaabiixu duja a'immada madaxda diineed ee dadku ay iftiinka iyo khayrka ku raacayaan waa kuwaasuu yidhi waxaa kaloo lagu garan bishahaadati mashaa'ikhihim lahum bilcilmi dadkii ay wax ka qaateen waa dad culimo leh oo ma aha dad dariishadaha ka soo daatay ma aha dad iska muxuu ahaay leedafuul oo iska qasbadana ma aha waa dad cilmiga abtir u leh oo culimay ka qaateen oo hoos fadhiisteen ooy ka dhagaysteen culimadoodii baa uga markhaati kacday oo ku tidhi culimaa tihiine diinta gudbiya oo sheega sida imaamu maalik caleyh raxmatullaahi uu leeyahay laa yanbagii lirajulin yaraa nafsahu ahlan lishayin xataa yas'ala man kaana aclama minhu ma habboona buu leeyahay nin u arka inuu arrin mudan yahay ama ahal u yahay inuu arrintii uu isaga tillaabsado ma habboona ilaa uu ka weydiiyo cid isaga ku aqoon dhaanta oo mashaayikhda kale isaga ka aqoon roon ilaa uu weydiiyo oo uu yidhaahdo ma fatwoon karaa cilmiga ma gudbin karaa ilaa isagu markaasi uu culimada ka aqoonta badani ama culimadiisii markaasi ay u idmaan wuxuu leeyahay imaamu maalik caleyh raxmatullah wamaa aftaytu xataa sa'altu rabiicata wayaxya bna saciid fa amaraanii bidalika buu yidhi masalo diineed kama jawaabin buu yidhi ilaa aan weydiiyey buu yihi culimadii aan wax ka bartay sida rabiicata ibni cabdiraxmaan alra'y iyo yaxya bnu saciidin alansaari iyo raggaa ilaa aan weydiiyey yaxya bnu saciid raggaa ilaa aan weydiiyey oo iyagu marka ay amreen oo yidhaahdeen fatwood oo diinta sheeg hadday iga reebi lahaayeenna ma aanan sameeyeen buu yidhi marka waxaa lagu garanayaa cilmigoodu abtir buu leeyahay culimadoodii baana u idantay waxay haystaan ijaazaad iyo wax la yidhaahdo muxuu ahaay cilmi la kala dhaxlay waxaa mar badan isku daa oo dadka isaga dhex qasma oo aan la kala saarin waxa loo yaqaano bayna alculamaa'i waalquraa niman quraa la yidhaahdo iyo culimada ayaa dadka marmarka qaarkood isaga qasma waxaa mararka qaarkood sidoo kale isaga qasma waxa loo yaqaano alculamaa waalmufakiriin culimada iyo nimanka mufakiriinta la yidhahda ama muthaqafiintaba loo yaqaano ayaa isaga qasma oo marar badan ayna dadku kala saarin waxaa mararka qaarkood isaga qasma nimanka la yidhaahdo
dadka loo yaqaano alculamaa waalkhutabaa nimanka khudbooyinka jeediya wacdiga jeediya ku fiican wacdiga jeedintiisa marar badan waxay ku darmadaan oo ku qasmaan culimada marka culimada iyo dadka u ekaan kara in la kala saaro la kala sooco sifaadkooda la tilmaamo runtii waxay ahaan lahay darsi khaasa laakiin hadda waxaan jeclahay inaanu ishaaraadka kaga gaabsado culimadu diinta islaamka xambaarsan diinteennu waa diin xuquuqeed wey waa diin allah tabaaraka wa tacaala cid walba booska uu leeyahay uu dejiyey wey waa diin aan dulmi ku salaysnayn cadaaladeed wey waa diin khalqiga ilaahay tabaaraka wa tacaala mid walba xaqiisa siisay wey ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu ilaahay cid walba xaqiisa waa siiyey mansilada iyo booska uu mudan yahayna waa dejiyey wax isku qasani ma jiro ruux walba waxaa loo baahan yahay marka booska uu mudan yahay iyo mansilada uu mudan yahay in la dejiyo oo aan la yasin aan la xaqirin aan lagu xadgudbin aan wuxuusan mudnaynna korka laga saarin wixii uu mudnaana aan laga xayuubinin cidduu dooni ha noqdo ummadda afraaddeeda raggeeda iyo dumarkeeda da'yarteeda iyo duqaydeeda cid walba culimadeeda iyo caamadeeda cid walba position buu leeyahay booska uu leeyahay in la geeyo la mariyana waa waajibka shareecadeennu iyo cadaaladda rabbi tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey taa iyada ah waxay tilmaamaysaa marka oo qayb ka ah allah tabaaraka wa tacaala inuu culimada boos dejiyey oo mansilo siiyey ummaduna loo baahan yahay inay mansilada culimada la siiyey inay ilaaliyaan khaasatan waayahan dambe oo runtii ummadda inxiraafaad fara badani kusoo kordheen yacni afkaar fara badan oo khaldan afkaar fara badan oo wareersan afkaar fara badan oo marar badan yacni qabta khamiis iyo shaati diimeed qabta afkaar fara badan oo da'yartii muslimiinta saamaysay caamada in badan oo ka mida gashay afkaartaasi oo keeni karaysa runtii inay diinta ay halis geliso bal ummadda diinteeda iyo adduunyadeeda inaysan waxba hambaynin afkaartaasi ka hortaggeedu iyo qaabka looga hortegi karaayo waxaa ugu horreeya ummadda in cilmiga la baro oo culimadeeda lagu xidho oo ay ogaadaan maxaa khaldan maxaa saxsan wayna soo jiri jirtay afkaarta noocaasi nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu dhintay wax yar kadib ayaa waxaa bilaabatay afkaartan muxuu ahaayey culimadii iyo fuqahadii saxaabada iyo dadkii diinta xambaarsanaa yasaysa oo xaqiraysa oo mansiladoodii iyo booskoodii ama aan garanaynin ama iska indhatiraysa waana fikirkii ay la yimaadeen nimankii khawaarijta kadibna intaaba kuma ekaynina ay ka dhalatay inayba gaalaysiiyaan fuqahadii iyo culimadii ummadda markii dambena ku xijiyeyba inay dhiigooda bannaysteen oo laayaan fikirkaasi fikir taariikhdiisu horreeyey buu ahaa xidid dheer leh wakhti dheer soo jiray aadna shareecadu ay uga digtay marba soo baxa haddana la demiyo marba soo baxa haddana la baktiyo afkaarta noocaas oo kale ah oo runtii ummadda hadda aada ugu badatay soo korodhay qaar fara badan oo da'yarta ka mida saamaysay afkaarta iyada ah ayaa ka mid ah waxyaalaha runtii keenay mawduucan inaan bal ilaa xaddi maa waxoogaa ka tilmaano maxaa yeelay runtii in culimada laga dhigto hadaf laga dhigto oo taarged laga dhigto oo la bannaysto wax ka sheegooda oo la bannaysto duridooda oo la bannaysto ku jeesjeesidooda oo ku la bannaysto oo majaalista iyo golayaasha yacni waxa weeyaan lagaga sheekaysto wax ka sheegooda uun shaqo laga dhigto oo muxuu ahay majaalista lagu camirto la tafsiiqiyo la tabdiiciyo oo muxuu ahaayey diintaba yacni diintoodaba shaki la geliyo marka dambena la gaalaysiiyo oo diinta laga saaro
marka xigtana dhiigooda la banaysto oo da'yarta iyo dhalinyarada lagu qanciyo waxa diinta hortaagan oo diintu inay guulaysato oo ay saro marto oo cadowga laga xoroobo oo ummaddu ay cisigeedii iyo sharafteedii yeelato waxa hortaaganba waa culimada. sidaas daraaddeed nimankan culimada sheeganaya waa in la khaarijiyo, waa in ummadda la dhaafiyo. halkaasi silsilada dheer ee saa isu taba taalla in runtii waxa weeyaan waa fikir maanta jira in badan oo ka midana ay ku khaldameen, halis badanna ay ku galeen, culimo badanna lagu laayay, qaar badanna ay hadda halis iyo khatar ugu jiraan. arrintaasi marka runtii waa arrin baraarujin mudan ummadda muslimka in lagu baraarujiyo culimadeeda iyo mansilada iyo booska ay u joogto iyo sida ay muhim ugu tahay noloshooda ayna uga maarmin dadka ilaahay sharcigiisa xambaarsan tabaaraka wa tacaala. haddii aan marka qodobo dhowra ka tilmaamo anigoon kusii dheeraanaynin mawduuca waqtiguna iska gaaban yahay, culimadu allah tabaaraka wa tacaala waa kuwa uu amray waajibiyeyna in amarkooda la raaco oo la ateeco fii daacati illahi tabaaraka wa tacaala. waa ummadda ulil amriga ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi ateeca ayay culimadu mudnaanta koobaad leeyihiin ama iyagu ugu horeeyaan. allah tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu alrasuula wa uli lamri minkum. war dadka iimaanka lehee ilaahay iyo xaqa rumaysanow allah ateeca tabaaraka wa tacaala oo amarkiisa yeela, rasuulkiisa ateeca sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo amarkiisa yeela. dadka taladiina haya ee ulil amriga ah iyagana ateeca oo wixii ilaahay sharcigiisa ayna ku khilaafsanayn ku ateeco kaga amar qaata. ulil amrigaas culimadii salafka ee qur'aanka fasiray cabdullaahi ibnu cabbaas ardadiisii, culimadii kale ka dambeysay ee aqoonta dheeraadka u lahayd cilmiga tafsiirka waxay ku fasireen ulul amriga al-umaraa'u waalculamaa. waa laba qolaa ulil amri la yidhaahdaa. qolada awoodda iyo nidaamka dowladeed gacanta ku haya waa madaxda weeye. qolada labaadna waa qolada cilmiga iyo garashada iyo aqoonta gacanta ku hayso ilaahay u dhiibay. labada qolaa ulil amri la yidhaahdaa. waa dadka ahlulxalli walcaqdiga sida kale loo yidhaahdo, talada ummaddu dadkay ka guntanto ee haddana furo weeye. dadkaasaa marka ay culimadu hormuud ka yihiin. bal sida ay leeyihiin culimada qaarkood alimaam abubakr aljasaas, ibnu taymiya, ibnulqayim, ibnulkathiir, intuba siday leeyihiin iyo keyrkoodba waxay leeyihiin aayaddu labada qoloba way soo wada gelaysaa. ficlan xaqiiqada markay noqoto in la isreereebo dowladda lafteeda iyo ninka madaxda ah ee awoodda gacanta ku hayaay hadduusan culimo ahayn isaga laftiisu waxa waajib ku ah inuu ateeco ka amar qaato culimada oo markaasi uu noqdo cilmigu midka taliya oo uu noqdo ninka cilmiga sharciga xambaarsani midka loo noqdo oo waxa uu xambaarsan yahay iyo cilmiga uu wato darteed loogu noqdo. nolosha muslimkuna halkaa ku wada laabato oo ilaahay sharcigiisa u noqoto, sharciga rabbi ha u noqoto marka la leeyahayna cidda xambaarsan unbaa loo laabanaya. yacni ilaahay kitaabkiisa, sunnadii nebiga iyo rasuulka intuu noolaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lafahaantiisa, markuu geeriyooday kadibna dadkii cilmiga dhaxlay ee xambaarsanaa unbaa loo noqon. allah marka waxaan dhahaynaa sida aayadda qur-aankii tilmaantay, waxaan leenahay wuxuu amray oo ummadda amray culimadiina ateeca oo amarkooda yeela. midda labaadi waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo u waajibiyey in loo noqdo culimada oo arrimuhu markay adkaadaan ayaga la weydiiyo oo ruuxa wixii ka qarsooma uusan iska qasbanin oo uusan indhaha ka ridin oo iska leedafuulin, balse waxaa loo baahan yahay wixii kaa qarsoomo oo shaki kaa galo inaad u laabato ciddii aqoonteeda leh
إلهي تبارك وتعالى وقلنا معيو سيي قرشة إذا ربكين آيات القرآن كم إذا أكيري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أديدان إذنكو قرنين ضدك أقوان تيدا لويدية بأليه تبارك وتعالى أهل الذكر كمركة وأهل العلم ضدك أقوان تله الدين تيقانا شرعك حنبارسا كتابك قرآن كي تفسير كي سيقانا حديث النبي صلوات ربي والسلام عليه صحيح هذه الضعيف كذا كلا قرن استنباط كذي فقه كذي محل قادنا يا قرن ناسخ يا منسوخ كلا يقانا ضدك أقونتي شريعة حنبارسا ضدك يجا وحويدية برب ليه تبارك وتعالى ويدية مركل ليه هاي ضدك الله أمر إني وحويديان وضدك أن أقونت لهين وضدك أن علماء أهين يعني وحوي طلبة العلم يا عامة أمضبا وحيكون قصبنتها يا ربي كوا تبيو كل لازمية إني علماء ذويديان وحي كقرصومة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحل ويدين يا علماء الله والله بنا ياي كلية تماها ولا ليال مسائش قار كم إذا ما لكن ونلشوا دن noloshiina wixii dhaqaalaha ku saabsan iyo maxaa saxsan maxaa dhaqaalaha ka khaldan culimada u laabta weydiiya noloshiina wixii cibaadaadka ilaahay aad ugu dhawaanaysaan wixii saxsan iyo wixii khaldan culimada weydiiya caqiidadiina waxaad ictiqaadinaysaan oo qalbiga aad gashanaysaan oo rumaynaysaan sidoo u saxmi lahaa culimada weydiiya oo iyaga yani garanahaye yani waxa weeye wixii ka hufsada oo saxda sidoo kale to nolosha inteeda kale masaalixda iyo danaha guud ee ummadda siyaasadda iyo dawladda iyo nidaamka iyo dastuurka muxuu ahay akhlaaqiyadka iyo dhaqanka qoyska iyo xeerkiisa masaalixda iyo danaha kale iyo dagaal iyo ummaddu goormay dagaal qaadi iyo goormay dagaalami iyo goormaysan dagaalamaynin iyo goorma la jihaadi iyo goorma la jihaadaynin goormuu fasaad yahay iyo goormuu maslaxa yahay iyo yani fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ilaahi tabaaraka wa ta'ala muusan waxa la weydiinayo wax gooniya kama dhigina wax walba oo idinka qarsoomo oo garan weydaan culimada ula laabta rabbiga tabaaraka wa ta'ala marka wuxuu ka dhigay rabbi marjici loo laabanayay ee mushkilada saarayay ayuu rabbi ka dhigay tabaaraka wa ta'ala waxay ku tusaysaa mudnaanta ay culimadu leeyihiin iyo manzilada iyo booska ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin tabaaraka wa ta'ala waxyaalaha ku tusaya waxa kamida mudnaanta iyo darajada culimada ilaahay siiyay ummaduna inay aqbasho oo ay sida ku qaadato loo baahan yahay ربي تبارك وتعالى يجا أيو مرخاتي قليي وحلقا مرخاتي كعو وحا أقوه إن إلهي مرخاتي بأقدقي وحلقا مرخاتي كعو إلهي وحداني يديس هي مضنانتا وحقي سموديه عبادة كليقي ليه أرنتا سأقوه إن شي مرخاتي سلفره أو لقره شي قاسي إلهي وحو مرخاتي أقدقي علمده وربي تبارك وتعالى نفتي سإساقا قري markhaatiga ugu horeeyay isaga furaya rabbi oo qiraya malaa'iktiisu ku xijiyay wuxuu ku sadeexeeyay oo markhaatigooda rabbi tabaaraka wa ta'ala wax weyn oo qiimo leh ka dhigay dadka culimada cilmiga xambaarsan wuxuu rabbigan yiri tabaaraka wa ta'ala shahida allah annahu la ilaha illa hu wal malaa'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist allah wuxuu qiray oo rabbi tabaaraka wa ta'ala markhaatigeeda uu furaya cid xaq lagu caabuday inaysan jirin asaga mooye malaa'igtuna sidaas oo kale iyaduna qiraysaa markhaatigeeda furaysa waxa sadeexeeyo markhaatiga furaya dadka aqoonta iyo cilmiga sharciga leh u fiirsada rabbi tabaaraka wa ta'ala naftiis malaa'igtu kullabeeyay culimadu ku sadeexeeyay basharka aadamaha إلهي تبارك وتعالى انت أبوري آدم كفر عمي ربي تبارك وتعالى علماء أي درجة كوبات فيه بل نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصة قرآن كريم كي أكور رمي
rabbi markuu rabay inuu darajadiisa iyo mansiladiisa muujiyo malaa'igta u sujuuda uu yidhi malaa'igtuna kadib muxuu ahaaye ibliis uu diiday rabbi tabaaraka wa tacaala suuratu albaqara bilowgeeda mansilada nebi aadam rabbi wuxuu ku muujiyey cilmi buu ku muujiyey ma aha inuu qurux ku muujiyey mana aha inuu dhaqaalo ku muujiyey ma aha inuu kursi ku muujiyey ma aha inuu wax kale ku muujiyey rabbi wuxuu ku muujiyey aadam fadligiisa cilmigii iyo aqoontii iyo waxyaabihii malaa'igtu markay garan waayeen uu baray halkaa markii uu macallin noqday oo ilaahay aqoontiisa uu malaa'igta tusay ayay markaa malaa'igtu u sujuudeen oo ixtiraam iyo qadarin darteed loogu sujuuday arrintaasi waxay tilmaamaysaa basharka dadka mudnaanta koowaad leh waa dadka aqoonta xambaarsan ee cilmiga iyo garashada la wey marka rabbi tabaaraka wa tacaala markhaati furkaasi culimada markhaati furkooda uu rabbi tabaaraka wa tacaala malaa'igta ku xijiyey waxay ku tusaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa inay qiimo weyn ku fadhiyaan waxaa ka mid ah qaababka rabbi tabaaraka wa tacaala culimada u karaameeyey u sharfay mansiladooda iyo makaanadoodana u muujiyey waxaa ka mid ah wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala meesha ka saaray oo uu rabbi tabaaraka wa tacaala diiday dadka aqoonta leh iyo dadkaan aqoonta lahayn in la simo wuxuu rabbi yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun war miyay siman yihiin dadka aqoonta sharciga a leh iyo dadka aan aqoonta lahayni ma siman yihiin ma sinno wey mana sinmi karaan in la simana waa khalad yacni ruuxaan aqoon lahayn oo jaahil ah oo isagaba in la hago u baahan oo in gacanta la qabto u baahan oo in dhool ahoon waxba kala arkayninoo iska hagabsanaya iyo caalimkii cilmiga lahaayee iftiinka waday ee yacni wax kala yacni ummadda wax kala tusayey labadaasi inay sinmaadaan oo laysgarab dhigoo la simaayey rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala arrintaasi sax ma aha aayad kale oo qur-aanka kariimka ka mid ah rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay dadka mu'miniinta guud ahaan oo alla wada jecel yahay oo ahlul iimaanka ah ahlu tawxiidka ah ahlul xaqa ah dadkaasi dhammaantood markii la isku celceliyo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu darajada sare siiyey dadka cilmiga leh wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala yarfaci illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat alla tabaaraka wa tacaala dadka mu'miniinta ah guud ahaan gaar ahaanna dadka cilmiga iyo aqoonta leh wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala kor u qaaday darajaad u fiirso mu'miniintii baa la sheegay mu'miniintii waxaa lagu cadfay oo la daba dhigay dadka cilmiga leh yacni mu'miniin way yihiin laakiin waxaa si gooniya loogu sheegay ayagoo qolada horena ka mid ah haddana si gooniya waxaa loogu sheegay ahmiyadiiyo mudnaanta goonidoy ka leeyihiin dadka intooda kale saas daraaddeed waxaa la yidhaahdaa waa khaasatu ahliliimaan dadka mu'miniinta ah xulkooda waay yacni dadka hormuudka u away dadka ahlul iimaanka iyo mu'miniinta guud darajaad bay la dheer yihiin oo dadka sare wey alimaamu tabari imaamu lmufasiriin wuxuu leeyahay aayadda markuu fasirayo yarfaci illaahu aladiina uutuu lcilma min ahli liimaan cala almu'miniina aladiina lam yu'tuu lcilma bifadli cilmihim darajaatin idaa camiluu bima umiruu dadka ahluliimaankeen cilmiga la siinin ilaahay wuxuu ka kor yeelay dadka cilmiga leh fadliga ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmiga uu siiyey darteed buu ku fadilay waase markay ku camal falayaan wixii la amray oo ay ku dhaqmayaan arrintaasi marka waxay tilmaamaysaa haddaad uun ruux mu'mina qadarin lahayd ood ruux mu'mina ixtiraami lahayd oo ruux mu'mina uu darajayn iyo qiimayn kugu leeyahay culimmadu waa ka sii xag jiraan oo waa ka mudan yihiin cid walba arrintaa iyada ah aayadda qur-aankii macnahaasay tilmaamaysa waxaa ka mid a ilaahay tabaaraka wa tacaala sida uu u qiimeeyey u sharfay iyo muhiimaddii ahmiyadda ay ummadda u leeyihiin xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebiyada alle iyo ambiyada marka laga yimaado
ummadda inteeda kale culimadaa u fadli badan sida nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu tilmaamayo xadiidka abudardaa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari leylata albadri cala saa'iri alkawaakib ruuxa muslimkaa iska cibaadaysto cibaadada badan masaajidka ku jira khayraadka aan ka daalin soonka iyo salaada iyo xajka iyo cumrada iyo sadaqada iyo khayraadka uun wakhtigiisa ku bixiya laakiin aan aqoon badan lahayn ruuxa isaga ah waxaa ka fadli badan caalimka diinta islaamkaa xambaarsan ee aqoonta leh fadliga ay isdheer yihiinna wuxuu la mid yahay dayaxu habeenka 14 uu dhammaystiran yahay iftiinkiisu inta uu la dheer yahay xidigaha intooda kale iftiinka uu dayaxu la dheer yahay habeenka ugu dhammaystirnaan badan yahay xidigaha intooda kale iftiinka uu la dheer yahay buu caalimku la dheer yahay caabidka iska cibaadaysta xadiidka nabigeena sallallahu alayhi wasallam qaybo kaleeto xadiiska macnaha wuxuu tilmaamayaa dee caalimka ilaahay cilmigiisa xambaarsan waxaaba ku filan cid kasta ilaahay dembi dhaaf u weydiinaysa xataa malayga xayawaanaadka aad aragteen ee faraha badan ee badda ku nool ee balaayiinta ah waxay u ducaynaysaa ninka culimada ee diinta islaamka xambaarsan bay u ducaynaysaa xataa cayayaanaadka yacni quraanjada xataa godkeeda ku jirta waxay u ducaynaysaa ninka caalimka ee cilmiga xambaarsan wuxuu nabigu yidhi sal alay wasalam wa ina alculamaaa warasatu alanbiyaa culimadu waa dadkii dhaxlay nebiyada wa ina alanbiyaaa lam yuwarithuu diinaaran walaa dirhama nebiyadii rabbiya rusushiisu ma aynan ummadda dhaxal siininoo ugamaynan tegin wax xoolo ah dirham iyo diinaar lacag ugama tegin lacag laga dhaxlayo xoolo laga dhaxlay ma jiro nebiyada walaakinahum warasuu alcilma waxayse ummadda uga tageen oo dhaxal u ahaa oo laga dhaxlay oo ummadda dhaxal ahaan u siiyeen cilmi buu ahaa garashiyi aqoon bay ahayd faman akhadahu akhada bixadin waafir dhaxalkaa isagaa ninkii wax ka helaayay dheef weyn buu helay marka yaa dhaxalkii xambaarsan xadiidkaasi axmed iyo abu daawuud iyo daarimiyaa soo saaray waana xadiis sugan wey wuxuu tilmaamayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ambiyadiisii iyo rusulshiisii oo ilaahay uu dadka kuwuu ka doortay ahaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu fariintiisa usoo dhiibay ahaa khalqiga ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwii ugu fadli badnaa ahaa ummaddana nolosheeda gacanta ku hayay oo waxay ku noolaan lahaayeen adduun iyo aakharaba u hayay nebiyadii rusushii hadday dhinteen yaa dhaxalkoodii hayo waay waxa uu xadiisku tilmaamayaa wixii ay ka tageen waxa haya waa culimada waxyigii bay hayaan qur'aankii kariimka ahaa sunnadii nebiga sal alay wasalam cilmigii nebiga laga dhaxlay saxaabadaa dhaxlay taabiciintay u dhiibeen culimadaa ka soo qaaday sidaasay marka dhaxalkii isugu dhiibeen ummadday u hayaan oo u waardiyeynayaan ummadda inteeda kalena waa biyaha iyo badda ay ka cabbayaanoo webiga ay ka waraabayaanoo ay ku nool yihiinoo muxuu ahaaye ay u noqonayaan markay oomaanba ay u soo laabanayaan oo markay gaajadaan ay wax ka raadinayaan oo cuntadii iyo cabitaankabu ah weeye meesha iyadaa waxaynu ka fahmaynaa marka haddii culimo la waayo dhaxalkii nebiyadii rusushana waa la waayay cilmigii la waa mar haddii cilmiga la waayana waa u tegi doonaa halista runtii ku imaan doonta ummadda muslimka waxaa ku tusaya karaamada iyo sharafka iyo qiimaha ummaddu waxaan culimadu ay leedahay runtii waxaa la dhihi karaa waa dadka ilaahay khayrka la doonay wey binasi xadiidi saxiixayn xadiidi mucaawiya nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninkuu ilaahay khayr la rabo diintuu fahansiiyaa xadiisku wuxuu ku tusayaa oo laga fahmayaa ninka diinta xambaarsan ayaa ilaahay khayr la doonay waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kahiira ninkii cilmi iyo camalfalkiisa la siiyo khayr aad u fara badan baa ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala oo wanaag fara badan baa ilaahay uu dooray oo khayr fara badan buu rabbigii tabaaraka wa tacaala ku fadilay waxa uu leeyahay alimaamu alaajuri calayhi raxmatullah falama araada bihim khayran faqahahum fi ddiin
markuu ilaahay khayr la doonay oo la damcay diintuu fahansiiyey wacallamahum alkitaaba waalxikma sunnada iyo kitaabkana wuu baray wasaaruu siraajan lilcibaadi wamanaaran lilbilaad markaasaa waxay noqdeen faynuus ummadda iyo yacni shay waddankii iyo ummaddii beledkii iyo ummaddii intuba iftiin ay fiirsadaan oy ku diirsadaan oo mugdiyada lagaga baxo oo halisaha iyo khataraha lagaga badbaado ayaa ilaahay ka dhigay buu yidhi tabaaraka wa tacaala sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah sidoo kale wuxuu leeyahay kullu ummatin qabla mabcati nabiyiha muxamed sal alay wasalam ummad kasta qabla mabcati nabiyina muxamed sal alay wasalam nabigeenna intaan la soo saarin ummadihii ka horreeyey ummaddeenna fa culamaa'uhaa shiraaruhaa culimadeeda ayaa ugu shar badnayd dadkii diinta waday ayaa ugu xumaa laakiin muslimiinta iyo ummadda nebiga sal alay wasalam fa culamaa'uhum khiyaaruhum buu yidhi culimadeeda ayaa akhyaarteeda ah ilaahay taasuu wanaag uga dhigay sababtana waad garanaysaan ummadihii hore ee ummaddeenna ka horraysay walaalayaal ma jirto markii rasuul ka dhinto ama nebi ka dhinto ayaa waxaa dhici jirtay nebi kalaa loo soo diri jiray rasuul baa uga dambayn jiray saasaa diintu ku ilaashanaan jirto alla ku xifdiyey laakiin nebigeenna sal alay wasalam nebi ka dambaynaya ma jiro rasuulna kama dambeeyo nebina kama dambeeyo ilaahay baa saa xukumay laakiin xilkii iyo mas-uuliyaddii iyo booskii reer bani israa'iil nebiyadu u joogeen waxaa u joogta ummadda nebi maxamed sal alay wasalam culimadaa u joogta mas-uuliyaddii iyagaa u haya xilkii iyagaa u haya diinta faafinteeda iyo gudbinteeda iyagaa laga rabaa u dagaalamideeda iyagaa laga rabaa ayagaa la doonayaa inay ummadduna ula mucaamalooto mas-uuliyaddii xilkaa iyo booskaa ay joogaan inay ula mucaamalooto ayaa loo baahan yahay oo yacni waxa weye ilaahay tabaaraka wa tacaala darajadaa uu siiyey hade waa darajo uusan nina ka qaadi karin wey haddii ay isu tagto marba hadduu ilaahay qabuul siiyo oo ninka caalimka ee culimadaa ilaahay ummadda uu qalbigeeda wanaag u geliyo oo aqbal siiyo yacni haddii adduunkao dhan isu tagaayo darajadaasi lagama qaadi karo maxaa yeele xagga rabbi bay ka timid xadiiskii nabigeenna sal alay wasalam allah tabaaraka wa tacaala idaa axabba cabdan naadaa jibriil allah hadduu addoon jeclaado jibriil buu u yeedhaa markaasuu wuxuu yidhaahdaa jibriilow hebel waan jeclahaye jeclow jibriil baa jeclaanaya jibriilna malaa'igta dhexdood u dhawaaqayaa wuxuu leeyahay war hebel allah jeclaaday ha la jeclaado malaa'igtuna way jeclaanaysaa wuxuu nebigu leeyahy sal alay wasalam uma yuudacu lahu alqabuulu fi lardi dhulkaa marka aqbalkii loo keenaya dadka ahlulkhayrka iyo ahlutawxiidka iyo ahluliimaanka iyo dadka wanaagsan baa jeclaanaya sidaasaa lagu aqbalaya sidaasoo kaleeto ruuxii ummaddu ay u aqbasho cilmigiisa ay aqbasho oo culimonimo ay u aqoonsato yacni waxa weeyaan dacaayad iyo aflagaade iyo muxuu ahaayey harjad iyo midna waxba yeeli mayso ilaahay baa xaggiisa ay ka timid haddiise laakiin uu markii horeba dhoodhoob ahaa oo wax xagga alle ka yimid uusan ahayn oo wax ismaqashiin iyo istustus iyo isagu wuxuu qasbaday ay tahay taasi meel fog gaadhi mayso yacni waxa weeyaan caddo laba a saddexayn mayso meel fog markaa ma gaadhayso way iska fadeexoobi midda noocaas oo kale ah ilaahay tabaaraka wa tacaala walaalayaal culimadeenna intii hore tagtay ee cilmigeena soo gaadhsiisay inta nool iyo inta imaan doontaba waxaa la dhihi karaa runtii waa lafdhabartii ummadda weye jiritaanka ummadda iyaga asaas u ah badbaadada ummadda adduun iyo aakharaba iyagaa asaas u ah bal waxa weeyaan ummaddu inay halaagsanto ilaahay wuxuu kaga xifdiyaa culimadeeda hadday culimadu tagtana cilmigii baa tegey hadduu cilmigu tagana ummaddu waa halaagsanta xadiidka cabdillaahi bni camr bni caas fii saxiixi albukhaari wa muslim ayaa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alcibaad ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmiga ma qaado siibid uu addoommada ka siibayo kuma qaado cilmiga markii ilaahay soo dejiyey qur-aanka soo dejiyey sunnada soo dejiyey fiqiga iyo tawxiidka iyo cilmigan ilaahay markuu addoommada baray
haddii la rabo in laga qaado addoommada quluubtooda laga siibi maayo oo lagala tegi maayo oo ilaahay ka qaadan maayo walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa laakiin dariiqada iyo qaabka cilmiga lagu qaadi doono culimmada geeridooda waayo intii taqaanay baa la qaadaya oo dhimanaysa markii intii taqaanay ay dhimato cilmigii way la dhinteen wuu raacay wax ka reebayna ma jiro xataa idaa lam yubqi caaliman mar haddii uusan ilaahayba soo reebin wax cilmi yaqaanaba oo culimmadii geeriyootoy tagtay tii ilaahay ku timid ittakhada annaasu ru'uusan juhaalaa dadku meel cidla fadhin maayaane waxay samaysanayaan dad madax ah oo aan aqoon lahayn oo jaahiliin ah booskii culimmada waxaa u gelaya oy gashanayaan dadku kuwa aan aqoon lahayn laakiin ay dadku moodeen inay aqoon leeyihiin aan waxba garanaynin wax la mooday laakiin aan waxba ahayn kuwaasaa booskii gelaya oo fadhiisanaya fa su'iluu culimaa la moodiyo markaasaa wax la weydiin masaa-ishii diintaa la weydiin caqiidadii baa la weydiin cibaadadii baa la weydiin dahaaradii baa la weydiin nikaaxii baa la weydiin dalaaqii baa la weydiin jihaadkii baa la weydiin masaalixdii iyo danihii ummaddaa la weydiin fa su'iluu waa la weydiin fa aftow bigayri cilmin garasho la-aan bay marka iska hadleen way jawaabeen aqoon la-aan way iska qasbadeen yacni way iska mala awaaleen cilmi iyo daliil maynan saarin way iska hadleen oo markaasay wixii la mooday bay ismoodeen oo markaasay hadleen wuxuu nebigu yuri sal alay wasalam fadalluu wa adalluu ayaguna waa lumeen ummaddiina waa lumiyeen u fiirsa marka culimmadii tagtay oo dhimatay cilmigiina raaciye yaa booskii galay kuwa aan aqoon lahayn oo ummaddu wax mooday laakiin aan sidaa ahayn haddii diintii la weydiiyeyna mayna gaabsanin oo ma garanayno mayna dhihine way iska leedafuuleen oo way qasbadeen kadibna waxay ku jawaabeen waxaan diin ahayn bay diin ka dhigeen ayaguna waa lumeen ummaddiina waa lumiyeen waa halaagsameen ummaddiina waa halaageen saciid ibnu jubayr attaabiciyu alkabiir caleyhi raxmatullah ayaa waxaa la weydiiyey kayfa halaaku lumma ummadda halaageedu see ku imaanayaa baa layidhi markaasaa wuxuu yidhi bihalaaki alculamaa culimmada halaagsankooda iyo baaba-ooda ayaa ummaddu ku halaagsamaysaa maxaa yeelay diintii iyo cilmigii hadduu meesha ka baxo ummaddaasi ummad jiri karta ma ah sidaas daraaddeed walaalayaal culimmadeenna ilaahay tabaaraka wa tacaala baa karaameeyey diinta inoo xambaarsan ku dhaqmaya ina baraya muxuu ahaaye waktigooda iyo juhdigooda iyo dadaalkooda ku bixinaya in badanoo danahoodii khaaska ahaa u dayacaya culimmadaa iyada ah ee ilaahay karaameeyey tabaaraka wa tacaala waxay inooga baahan yihiin inaan karaamayno baahida runtii aan u baahannahayna wax walba way ka muhiimsan tahay wuxuu leeyahay alimaamu axmed caleyh raxmatullah annaasu axwaju ila alcilmi minhum ila alطacaami waasharaab dadka ummadda iyo mujtamaca baahida ay u qabaan cilmiga iyo culimada ayaa ka weyn baahida ay u qabaan cuntada iyo cabitaanka yacni waxa weeyaan ma ka maarmi kartaa cuntada iyo cabitaanka adoon wax cunin ma noolaan kartaa maya adoon wax cabbin ma noolaan kartaa maya baahida aad cuntada iyo cabitaanka u qabto waxaa ka muhiimsan oo ka khatarsan baahida aad cilmiga iyo culimada u qabto wuxuu yidhi imaamu axmed caleyh raxmatullah lianna alطacaama waasharaaba yuxtaaju ilayhi fi lyawmi maratayni aw halaathan maxaa yeelay cuntada iyo cabitaanka maalinkii waxa loo baahdaay waa uun 2 goor ama 3 goor waalcilmu yuxtaaju ilayhi fi kulli waqti cilmigase waxaa loo baahan yahay buui wakti kastaa loo baahan yahay wakti kasta wax kastood samaynayso cilmi baad u baahantay sidaas daraaddeed baahida intaa la eg cidda kuu wadaay ee yacni waxa weeyaan kuu xambaarsani yacni aad buu noloshaada agteeda muhim inuu u ahaado aad qadarin kugu yeesho ixtiraam kugu yeesho baahida waxa aad u baahantay uu xambaarsan yahayna ka qaadatood ka faa'iidaysato isaga lafahaantiisii ilaaliso taasuu kaaga baahan yahay cabdullaahi ibnu imaami axmed ibnu xambal wiiluu dhalay oo cabdullaahi la dhihi jiray ayaa waxa uu yidhi buu yidhi aabbahay waxaan ku idhi aabihii waa axmed ibnu xambal imaamu ahli sunna aabbahay waxaan ku idhi buu yidhi ayu rajulin kaana shaaficiy shaafici nin noocee abuu ahaa fa innii samictuka tukhiru min adducaa'i lah waxaan ku maqlaa adigoo uun u ducaynayo
aad ducada yani ducadiisa aad u ducaynayso adoo aad u badinahay ayaan ku maqlay aabe shaafici nin noocee aabuu ahaa markaasaa wuxuu yidhi yaa bunay kaana kashamsi lidunya wa kalcaafiyati linnaas shaafici adduunka qorax oo kaluu u ahaa dadkana caafimaad oo kaluu u ahaa fahal lihaadayni min khalaf buu yidhi labadaasi hadday tagaan wax bedeli kara miyaad garanaysaa buu ku yidhi ma jiraa wax bedeli kara hadday qoraxdu tagto soo adduunku mugdi geli maayo wax booskeeda geli kara miyaa jira maya caafimaadku hadduu tago soo dadku wada jiran maayaan oo booskeeda wax geli kara miyaa jira maya imaamu shaafici saasoo kale u ahaa buu yidhi adduunyada iyo dadka u ahaa buu yidhi marka waxa weeye saas darteed baan ugu ducaynayaa culimmadeennu walaalayaal waxay naga mudan yihiin in muxuu ahaayey la qadariyo la ixtiraamo yani waxa weeye runtii ummaddan cizigeedii hore iyo karaamadeedii iyo guusheedii iyo horumarkay gaadhay iyo hoggaankii adduunka dhan ay hoggaamisay waxay ku hoggaamisay cilmi iyo culimuu ahaa mustaqbalkana inay cizigii ummaddu soo noqdo sharafkeedii soo noqdo oy awooddeedii soo noqoto oy guusha qaadato oo cadowgeeda iska dhiciso oo ummad jirto ay noqoto waxay ku soo noqon karta waa cilmiga iyo culimada wey xadiidka mashhuurka ee la yidhaahdo mutawaatir wey xadiidu daa'ifa almansuura laa tazaalu daa'ifatun min ummatii mansuura koox ummadayda ka mida la waayi maayo oo ilaahay u hiilinayo cadowgeedana ka adkaanaysa la waayi maayo ilaa uu ka yimaado saacaddu ama saacaddu soo dhowaato daa'ifadaasi loo hiilinayo ee laba qolo midna aynan dhibaynin ninkii hiiladooda ka baxo oo garabkooda ka baxoon u hiilinina dhibi maayo ninkii muxuu ahaayey cadaawad u qaado colaad u qaadana dhibi maayo ninkii khilaafo oo arrinkooda garab maroo ka hor yimaadana dhibi maayo laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum yeyihiin kooxdaas yeyihiin majaahil baa jaahil wax fasaadinaya oo ummadda burburinahaya oo dhiiggeeda bannaysanaya ma aha daa'ifa mansuura ma noqon karo ilaahay hiiladiisana maba mudan karaba laakiin daa'ifa almansuura a'immadii sunnadu waxay ku fasireen inay yihiin dadka cilmiga xambaarsan khaasatan cilmigii nebiga laga dhaxlay ee xadiidka iyo fiqhigii iyo fahamka ku jiraayay dadka xambaarsan dadkaasaa waxaa la yidhahdaa adaa'ifa almansuura alimaamu albukhaari imaamu axmed iyo kayrkoodba daa'ifada mansuuriya waxay leeyihiin waa culimada khaasatan cilmiga xadiidka waxayna ka wadaan waa dadka culimada iyo dadka raacsan wey yacni waxa weeyaan dadka jidkaa raacsan weeye dadka ilaahay u hiilinayo laakiin jidkaa dadka ka baxay oo cilmigii fududaystay oo culimadii fududaystay oo jid aan jidka ahayn maray ilaahay nasrigiisana ma mudna daa'ifa mansuurana ma noqonayo sidaas daraaddeed walaalayaal waxaan warkayga ku gebagabaynayaa ilaahayga tabaaraka wa tacaala culimo inoo yeelay tiradooduba ha iska yaraato laakiin ilaahay ummadda mar walba dad culimo diinta u cusboonaysiiye ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmadiisay ka mid tahay in marka waxay inooga baahan yihiin la xifdisto oo la ilaaliyo oo magacooda la ilaaliyo oo sumcaddooda la ilaaliyo oo yacni cidda ku xadgudbaysa laga qabto munaasib ma aha wax la dhegaysan karana ma aha wax la aqbali karana ma aha in culimada hilibkooda la cuno oo la xanto oo majaalista muxuu ahaaye carabka lagu qalo maxaa yeelay arrintaasi runtii waa sun dilaa'a wey luxuumu alculamaa'i masmuuma hilibka culimadu waa sumaysan yahay ninkii cunana inuu ku dhimanayo shaki ma laha waad dhimanaysaa macnaha nafta haddii lagaa qaado nin walba waa dhimanayaaye suntaasi waxay dilaysa waa diintaadaa u horraysa aakharadaaday dili oo diintaaday dili oo khaatumadaday dili oo mustaqbalkaagay dili oo adiga dhanba waxay kaa soo saaraysaa macangeg diinlaawo ah kadibna khaatumo xumo ku dhinta yacni waxa weeyaan alimaam cabdullaahi ibn mubaarak calayhi raxmatullah ayaa wuxuu dhihi jiray
man istakhaffa bilculamaa'i dahaba diinuhu ruuxii culimada fududaysta diintiisu waa tagtay wax diina meesha kuma hayo culimada marka in la qadariyo la ixtiraamo waa qodobka labaad ay inaga mudan yihiin waxa weeyaan in la difaaco oo ruuxa muslimka ee muuminka caadiga lagu xadgudbayo ayaa wuxuu kugu leeyahay in aad difaacdo oo ka difaacdo cidda ku xadgudbayso culimadu waa ka sii mudan tahay dadka da'yarta ah ee shaydaanka iyo nafta iyo in kharibani ay ugu sheekeeyeen culimada inay uun shaqo ka dhigtaan oo ay culimada xantaan oo ay zallaadkooda daba galaan oo ay muxuu ahaayey alqaab khariban ku sheegaan kuwa iyagii waxay u baahan yihiin in la edbiyo waxay u baahan yihiin in la qabto waxay u baahan yihiin in loo naseexeeyo ayaga ka mudan wax kasta ka mudan intaan cid kale loo danaynin ayaga in loo daneeyo la qabtay u baahan yihiin ummadda agteeda aan culimada ixtiraamkeeda meel lagaga dhicin maxaa yeelay sida uu leeyahay sheekh maxamed ibnu saalix al-Uthaymin calayhi raxmatullah wuxuu leeyahay culimada wax ka sheegoodu waa diintii ay xambaarsanaayeen oo wax laga sheegay wey taana waxaa ka dhalanaysa inay ummaddu diintay xambaarsanaayeen nacdo hadday ummaddu diintii ka jeedsatana hadayay raaci wey haddii ninkii culimada ahaa ay raaci lahayd wax ka qaadan lahayd lagu diro oo laga dhigo jaajuus oo laga dhigo diin laawe oo laga dhigo nin adduunyo diintii ka doortay oo laga dhigay balaayo uun muxuu ahaayey aan maslaxa iyo dan ummadda u haynin dayib wixii uu xambaarsanaayay isagii qori iyo qiiqiisaba waa laysla tuuraya arrintaasi inay macnahaasi sax yahay waxaa ku tusaya dadkii saxaabada ku jeesjeesay wuxuu rabbi ka dhigay inay ilaahay iyo aayaadkiisii rasuulka ku jeesjeeseen marka waxa weeye laana culimada marka la maagayo waxa lagu maagayo waa diintay xambaarsan yihiin xoolo mayna dad ka dhicin hanti mayna dhicin cid mayna aflagaadaynin ninna wax kala ma maqna laakiin waxa lagu maagayo waxa weeyaan waa diintan ay xambaarsan yihiin diinta ay xambaarsan tahay hadda ay xambaarsan yihiin ay wadaan haddaad ku maagto ood ku aflagaadayso ood ku dhibaataysana dee markaa iyaga uma jeedida diintaad u jeedaa marka waxa weeyaan in la difaaco culimada oo cirdigooda la difaaco oo sharafkooda la difaaco oo muxuu ahaayey dadka sufahada laga qabtay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin sidoo kaleeto ummad ahaan laynooga baahan yahay culimada jiritaankooda inaan iyagana ilaalino meelo fara badan oo ummadani ay degan tahay culimada dhiigoodii baa khatar ku jirta fataawi waxaa soo baxaysa laleeyahay ha la laayo oo da'yarta lagu dhiirigelinayo oo laleeyahay haddaad laysaan waxaad noqonaysaan shuhadaad noqonaysa yani waxa weeye muxuu ahaayey alqaatilu muxuu ahaayey mujaahid walmaqtuulu shahiid dila adiga dilayana mujaahid baa tahay asagana ilaahay hadduu u tago dantiisa yani waxa weeyaan ilaa heerkaas ayaa fataawi ku soo baxaysaa culimada ha la laayo oo qaar ka mida ficlan loo laayey oo dhiigoodii la daadiyey qaar badan oo ka mida ay muxuu ahaayey culimadu markii ay noqoto in ay halis galaan oo culimadii la taargadgareeyo waxyaalaha ka dhalanaya waxaa ka mida walaalayaal in badan oo ka mida inay lafahooda u baqaan oo iska aamusaan haddii la aamusana meeshii fasaad baa dhici cilmigii baa yaraan muxuu ahaayey qaar badan oo ka mida waxaa dhacaysa markii war ku bato oo uun wax iscaayaya iyo wax isaflagaadaynaya iyo wax isa saaranoo muxuu ahaayey qoorta ishaysta mooye wax kale haddii la waayo qaar badan oo ka mida inays yidhaahdaan war meeshani waa fitneeniyow ilmahaagii reerkaaga iska dhaqo iska danayso ilaahayna caabudo cusle inuu iska qaataa dhici karta in badan saaxadii inay u bannaanaato ninkii wax kharribahayey inay u bannaanaato jaahilkii inay u bannaanaato calmaanigii inay u bannaanaato ninkii diinta iyo dadka iyo maslaxadaba la dagaalamayey mafaasidaan yarayn baa ka dhalanaysa walaalayaal culimadeenna aan ixtiraamno macnaheedu ma aha culimadu inay macsuum yihiin ma aha waxay samaynayaan oo dhan kulli inuu wada sax yahay laakiin midda jirtaa waxay tahay ninka culimada ah khaladkiisa waxaa garan kara nin culimo ah waxaa sixi karaya sida qaalibka ah ninkii garan karaya masaa-isha uu ka hadlayo iyo nawaasisha uu ka hadlayo iyo fiqiga iyo fahamkiisa iyo bucdiga dadka fahmi kara ayaa sixi karaya laakiin dad fara badan oo wax ka sheegaya maba gaadhi karaanba meeshay ka hadlayaanna ma fahmi karaan
qaabkay u hadlayaanna ma idraagi karaan mustawahana maba gaadhinba muxuu ahaayey waxaan marka leeyahay oo ujeeddadu ay tahay walaalayaal muxuu ahaayey culimada ha la xifdiyo oo cirdigooda ha la xifdiyo oo dhiigooda ha la xifdiyo oo sharafkooda ha la ilaaliyo oo karaamadooda ha la ilaaliyo oo xaqiiqatan caamadii ummadii Soomaaliyeed iyo mujtamacii Soomaaliyeed muxuu ahaayey horaan jiri jiray culimada agtooda manzilo weyn bay ku lahaan jirtay darajo sare ku lahaan jirtay ilaa heer xataa waxay gaarsiisnaan jireen inay yiraahdaan xataa caamadu ninkii culimada wax ka sheegay haweenta ka furmaysa oo muxuu ahaayey ixtiraam ahaan xataa ay yiraahdaan halista uu ruuxu galayo maanta waxay noqotay hilib bisil oo nin walba ku durduriyo iska cunay noqotay khaasatan dadka ugu daran ee laga kari laayahay ee dhiigooda banaysanaya waa in badan oo da'yartii dhalinyaradii ah oo iyagu ay sabab u ahaayeen inay ka soo saaraan mahaaligta ka soo saaraan qaar badan jahli ka soo saareen oo wax bareen qaar badan oo kamida khuraafa iyo ay ka soo saareen oo muxuu ahaayey tawxiidka bareen qaar badan oo kamida muxuu ahaayey ay ka soo saareen fasaadka iyo meelaha xunxunka iyo akhlaaq xumada oo akhlaaq wanaagsan iyo diin ku soo celiyeen markii ay ahayd inay ilaahay ku shukriyaan culimadoodana u mahad celiyaan man laa yashkuri الnaas laa yashkuri illah ayaa waxay bilaabeen inay culimadoodii ay tafaan oo culimadoodii gaalaysiiyaan oo culimadoodii ku xadgudbaan oo culimadoodii ay dhiigooda banaystaan oo fududaystaan oo culimadoodii ay ku sheegaan oo ay noqotoba caamadii inay ka qabato inay caamadii ka qabato ka ilaaliso ka difaacdo ayay runtii noqotay fikirka iyo dadka xambaarsani sidaan horeyba u sheegay culimada targetka ka dhiganaysay waa fikir horeeyay waa fikirkii khawaarijta waa fikirkii saxaabada lagu laayay waa fikirkii fuqahadii saxaabada iyo taabiciinta lagu laayay fikirkaasi waa fikir ujeedadiisu ay tahay ninka wax garanaya ummadda ha ka dhaxbaxo magiciisana ha la dilo kadibna isagu doonayo isagoo jaahila inuu booska buuxiyo booskuna ma qaadi karo ummaduna ma aqbali karto sidaas daraadeed fikirka isaga iyo inta wadataba in loo naseexeeyo lalana dagaalamo fikirka ummadda lagala dagaalamo waa arrin laazim oo laga maarmaan ah cid ilaahay qadariyo boos wanaagsan geysay oo manzilo wanaagsan u geeyay ciddii isku dayaysay inay booska riixato oo ay meesha iyada fadhiisato waa in la yiraahdo meeshaadi ma ahe niyow tartiibso oo gadaal u deg arrinta iyada waa waajib oo masaalixdeena ku jirta danaheena ku jira adduunkeena iyo aakhiradeenna ku jirta haddii aan jidka isaga ka lunana runtii sida xadiiskii aan soo marnay tilmaamayay halis baan ku jirnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala sida xadiidka nabiga ku sugan ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid ah qadarinta rabbi waxaa ka mid ah ninka cilmiga sharciga xambaarsan qadarintiisa qur'aanka xambaarsan haddana ku camal falaya aan ka been sheegaynin ruuxa noocaas oo kale ah qadarintiisa ilaahay weynayntiisa ka mid ruuxa noocaas oo kale la fududaysto ilaahay oo la fududaystay bay ka mid sida xadiidka laga fahmay mafhuumkiisa macnaha laga qaadanaya ilaahay tabaaraka wa tacaala walaalayaal waxaan weydiisanaynaa fi asmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa inuu ilaahay xaqa nagu sugo fitankana naga xifdiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala tariiqii nabiga iyo saxaabadiisa inuu nagu nooleeyo oo uu nagu dilaan ilaahay weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala ilaahay inuu culimada caamiliinta ilaahay nagu daro ayaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahay inuu khaatumada noo hagaajiyo haddii aanan culimo ahayna ilaahay inuu dadka culimada ku xidhan oo ka faa'iideysta oo iftiinka ka qaata ilaahay inuu naga dhigo tabaaraka wa tacaala fitanka iyo daqiyada xunxunkaana ilaahay naga xifdiyo ayaan allah weydiisanaynaa inta ayaan kelimada ku soo gaabinayaa hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam